warintaynan maranin Yurub xanuuna ka dhacay wadannada qaarkood 3 meelood marka laga dhigo meel baabi'iyay waqtiyadii ay waxaan bilaabmayeen wadan dhan oo 1/3 hadduu 7 milyan 10 milyan mar qura wada dhibatay black days kay sheegi jireen laakiin way fakareen waxay u fakareen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo waa tan dhibti si badanayso oo dadkii uu isdhexgalayay how they can survive sidee u noolaan karaan therefore waa la maalgeliyay baadhitaana la sameeyay kan baa la sameeyay waxa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la talaalo talaalku waa xanuunkiyo nasakhanintiisa badani baa lagu mudayaa oo qofka bini'aadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyay difaac heegan ku jira difaacaagaas ba waxa la barayaa xanuunka noociisa dabeetana weerarku bilaabay sida loo dilaabo markiiba baranaya markuu barto uu record garaynaya yani khalaaya lamfawiya white blood cells waxay leeyihiin T cellsku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama qaybo gantaala rida qaybo wax basaasa qaybo qoraal la sameeya waxa soo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyay dhigaaga cad white blood cells waxa soo dhan leh xanuunku markuu jirka soo galo qola basaasta waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jirka soo galay waxa loo dalbadaa ciidamada maafiina qaybo kamid ah ku garaaca la yiraahdaa hadii madfacaasi dilo recordka lagu qoraa markastoo xanuunkaasi maada madfac hebel buu baahan yahay ku dhufo haduu madfacaasi dili waayo T cellska qaybaha kale T8 T4 baa loo dalbadaa oo ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca dagaalka waxa sababma waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kan bay waa shuhadadii meesha ku dhimatay labadii kooxood ee isgalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxan ka karaya bay leeyeen waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jirkaaga ilaahay baa diyaariyay waxa lagu talagalay marka diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si marka yimaadaan ba uga takhalusi karo talaalku waa inta uu markaa waa in saa lagu mudo dabeetana xanuunada markastoo jirkaagu dareemo instantaneous